السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا جو إنجنير قادرة إيه channel كيني برخير تي في. إنتي نقول عشر كينا هداتكم عصبتي channel كيني please subscribe like share and comment. Thank you. إنت كبعد واحد نقول إن عشر كينا وما أنت كسابسن lecture أما lesson كاسو كسابسن binary وحلا binary numbers أما binary system. binary system وحوي كمبيوتر كأيا كوشقية مركز binary وحوي number is a number system that uses only two numbers. وبينري نمبرسكو ونمبر بالو استعمالها انت بدن وانا 0 and 1 marka waa 0 computerka ayaa wax ku fahma computerku kuma fahmo inagu numberada caadiga isticmaalo ee caadiga markaas isagu wuxuu ku fahmaa wax la yiraahdo base 10 ayuu computerku ku fahmaa base 10 ayuu wax ku fahmaa inaguna base 2 ayuu ku fahmaa marka isagu numberada caadiga wax kasta imka dad wordka ama excelka ama everywhere aad wax istraa ku qor everywhere note kasto aad qorayso ama wax kasto computerka dhexdiisa ku qorayso waxa uu qoraya 0 and 1 marna waa on na waa off si fiican loo socda casharkan qofku networking-ka haduu doon rabo inuu meel fiican ka gaaro ama si fiican u fahmo ama ku shaqeeyo waa inuu fahmo wax la yiraahdo binary waa google gareyn kartaan oo waa ka akhrisan kartaan oo si kastaba Soomaali buu ku jiraa waxaad ka eegi kartaa YouTube ka isagoo English si fiican aniga la socda markaas ma aha wax maartay aad waayi kartaan markastaba laakiin aad casharka si fiican u fahantaa way marka binary numbers ku maadaama ay yihiin 0 and 1 in a binary system ka waxa weeye halkeen ku isticmaali leen rather than 10 numbers caadiga ah ee decimal ka ah marka base 10 baa la yiraahdaa marka base 10 waxa weeye two numbers kaas oo kaliya computer ku wax ku fahmaa waana on marna waa off waayahay inta markii ka gudubno halka hoosana waxaynu ku arkaynaa sida binary numberadiisu waa kuwan waa numberka si fiican baa aragtaan waa 11000000 marka inta waxa la isku yiraahdaa waa a digit waa octet intana waa a digit waa octet intana waa octet marka halka octetada kuma baranayna laakiin su'aalaha mar soo qaadana hadda imika waxaynu baranaa binary waa maxay baan niri waa 1 or 0 on iyo off si fiican baa telefoonta okay base 2 waa decimal numbers ko numberada caadiga ah ku shaqeyno waa 0 up to 9 si fiican baa aragtaan 0 up to 9 tan halkan marinso waa 0 from 0 up to 9 waa numberada caadiga ah decimal numbers are the numbers that we use daily life such as numberada aan sheegay 0 to 9 markaas numberada kale ee computerka isticmaala waa 0 iyo 1 marka waa computerka labaas wax ku fahmay okay haddaba numberkan waa IP address numberka halka ku aragtaan waa IP address waxa weeye 192 dot halka dot baa la socdaya 168 dot oo aragtaan 168 0 dot oo 0 no aragtaan dot 100 oo aragtaan halkaan oo aragtaan 100 okay numberkaas waa number waa IP address computerka ku shaqeeyo waana class numberkaas ayaynu u rogeynaa waxa la yiraahdo imika waa decimal number binary ayaynu u bedelaynaa number ama binary digit binary numbers baynu u bedelaynaa qaabkaynu ku bedelnaa waxa weeye markasta waa inaad qaacidada fahantaa halka ku taala qaacidada laga soo bilaabo halkaas ilaa iyo halka waa inaad fahantaa si fiican waa inaad socotaan qaacidada waa in qofka yaqaan qaacidada yaro simple aan anigu Soomaali ahaan inta soo turjumay way simple English baa inta badan normally network kala u qaata Soomaali ama wadamada qaarna qofku luqadda u dhashay okay nasiib wanaag luqadeena bal ku baranaa alxamdulillah markaas numberka markaynu doonayno 192.168.0.100 waa numberka koonaha yaala si fiican bay la socotaan arrow firsada numberkaas inta ka kooban ilaa iyo 192 ilaa 100 waa intan waa octet inta aad aragtaan waa octet
intana waa octet intana waa octet intana waa octet afarta octet oo misideeda waa number kasta oo ay bedris 32 bit buu ka koobay marka numberkaas aynu doonaynaa inaynu bedelo saynu bedelina waaba kuwanba qaybta ugu horeysa 192 markaynu bedelayno waan idin sheego waxaan ku wili waa on ama waa off waaye haddaba numberkan 192 ugu horeyna bedelayno numberadeen hoose ee ka soo bilaabo 1 2 4 8 16 32 64 128 qaacidadaas qofku waa inaan ilaawin marka numberadaas aynu eegina marka numberkan numberkee buu leeyahay de wuxuu leeyahay numberka ugu dhowi waa ka 128 128 isaga waynu soo qaadanayna marka 128 markastaynu 128 soo qaadanay wankaasu la mid yahay halka wan baa yaala la socdaya kaas waa 1 wankaas 1 buu inoo noqday marka 1 buu inoo noqday halkaas wankaasu inoo noqday okay miyay isleeyihiin labada lambar marka 192 iyo 128 maay waxa u dhaxaysa 64 de 64 waa numberka ku xiga maynu isku darno kan marka waa on buu inoo noqday number 1 64 kina waan soo qaadanay isku dar labadooda 64 iyo 128 waa 192 saasay numberka ku helay marka 1 kaasu yani 128 kanu 1 buu inoo noqday kol haddaynu helay numberkii de qaybtiisii hore oo wali wax naga dhiban yihiin 128 1 buu inoo noqday 1 kaasi waa on marka meel kasta 1 ku aragtaan waa on saan hore bay soo sheegay meel kasta 0 ku aragtaan waa off markay sidaa tahay in 64 kina inoogu dar waa 192 saasay numberkii ku helay kana wuxuu inoo noqday isna on labadaasba on bay inoo noqday waa 1 iyo 1 inta kalena waa uma baahnin dib because numberkii waa helay marka kan 0 baynu ka soo qaadanay kana 0 kana 0 kana 0 kana 0 kana 0 lixdii 0 na waa 1 2 3 4 5 6 numberkii saasaynu ku helay sidaas baa loogu bedelaa number kasta oo aragtaan qaacidada hilaawina qaacidada uu qofku eegaya number kasta oo loo keeno wuxuu leeyahay numberkii keebuu leeyahay ka okay ka marka yani aad hesho ayaad halkaas ka sitiraaysa okay 168 baynu hadana soo saarayna numberkana numberka 168 dhammaan numberada waan soo saarayna aa 10 wuxuu ku saabsan yahay binary numbers ma qaadi kartid talaabo lug ma jiidi kartid haddaanad networking kama fahmi kartid haddaanad binary system ka fahmin waayo subnetting hadhow ku baranaa subnetting waxa weeye waa iyadoo la jajabiyay IP addresskii oo de managerkii uu ku yiri shirkadda aad u shaqeynayso 20 computer halkan IP address igu jajabi waayo IP addressku waa qaal marka liibsan marka saawiyeed baa loo jajabiyay inta badan so markaas saas buu qaabkaas u shaqeeyo okay 168 casharkeenan ku noqono 168 ayaynu haddana doonaynaa 168 lambarkee baa numberkan u dhigma numberadan halka ku yaala waxa u dhigma waxaynu ka soo bilaabaynaa maadaama uu numberkan 168 wali 128 kii ka weeyay 28 kii waan soo qaadanayna waxa leen 28 kii isagana wuxuu inoo noqday 1 buu inoo noqday because numberkii keema weyn wali miinaan gaadhin kan baa yarde marka saasaynu ku soo qaadanay lama doonayna dhaafiso waaye marka 128 kii siisay noogu soo qaado number 1 buu inoo noqday oo markasta marka number heshaba numberku wuxuu ku noqonayaa ama waa 1 ama waa 0 numberka 128 ka iyo 64 ka jeedid marka doonaysa inaad halka u wareejiso qaybta aad ku xisaabso numberkan aad barbar dhigto waayo 168 baynu doonaynaa sidii kii horeba 192 aynu doonaynaa marka labada lambarkii baa weyn 128 baa yar 168 baa weyn okay marka halkan 1 ka inoo soo qaado on inooga dhig maxay naga dhigan numberka 64 ka hadaynu ku darno 192 noqonaya numberkii uu dhaafaya marka ma noqonayso 0 gana off inooga dhig isla inoo soo qaado laakiin waa 0 buu inoo noqonaya halka marka 1 iyo 0 baynu haysanaa okay 128 kaynu haysanay oo 1 inoo ahaa maxaan isku gaarsiinaa numberka 168 waxaynu ku gaarsiinaynaa 32 bal ku dar 32 markaynu ku darnay hadana imis inoo noqday 160 state baa wali naga dhiman marka 32 gii wana soo qaadano waxaan isagana 1 waa kan 1 inoo yaala isna on buu inoo noqday marka kuwan waa on saan ku sheegayba kuwaas halkaan ku qoray si u fahantaan waa on kana waa on kan kalena waa on halkaas ay kan ku qoraya waa on kan kale zero yadu waa off waxa la leeyahay zero ku aragtaa waa off waxa la leeyahay zero ku aragtaa waa off saaw qaata marka zero halka zero hadana ku tilmaamay zero yada kala noocisa okay marka ma xayno haysanaa 1 baan markii hore inoo helnay oo 128 1 buu inoo noqday 64 ma qaadanayno because uu ka badanayaa halkaan off baynu ka dhiganay off ka dhiganay qaybtan kalena waa 1
32 okay waa sax 160 maxay naga dhiman wali 8 bay naga dhiman wali 8 bay naga dhiman 8 bay naga dhimantay okay zero-gan kalena waxaynu ka dhiganay isna off baynu ka dhiganay zero-ga maaragtay because waxa weeye isugee labadan 128 iyo 132 waa 60 160 8 bay naga dhiman marka kan kaa waynu ka boodnay zero-ga ka off baynu ka dhiganay off baynu ka dhiganay kanna maxaynu ka dhiganay isna waynu ka boodnay waa off 16 haddii lagu daro way ka badanaysaa okay kanna isna zero-gaynu daynay sidiisa 16 8 kaasaan soo qaadanay 8 kaas kaasaynu ka dhiganay markaa 8 kaasaynu ku darsanay 8 kaas wuxuu inoo noqday on so markaa maxaynu ona 16 plus 32 plus 8 168 kiisaasaynu ku helnay correct sax inta saddexdan kale zero-yin iska gashanay maadaama aynu helnay maxaa soo haray 100 baa soo haray waxaan jeedaa zero baa soo haray zero-gan aynu doonina raadino maadaamuu zero inoo yahay dhammaan waa wada off 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 saasaynu zero-gu ku helnay isagana waa wada off day zero was zero zero was zero zero was zero was zero that's it marka waa off 100 baa inoo soo haray kaasaasaynu ku helnay 100 baa inoo haray 100 waxaynu samaynaynaa 100 waxaynu samaynaynaa 100 xisaabtankeeba u dhigma okay 128 way ka badantay 100 iska soo dhaaf zero iyada inooga dhig 64 maya uu ka yiri 64 marka on buu inoo noqday waynu qaadanaysaa marka halkaa 1 baynu ku haysanaa waa on okay 64 ka labaadna waa 32 iyo 64 isugu keendar waa imisa waa 96 good kanna waynu qaadanay marka labayna oona kan kale 16 haddaynu ku darno uu ka badanaya off dheh halkaa off inaga dhig calaa kulli xaal kanna off inaga dhig oo waa zero-giisaas bahanaya off baynu ka dhignay kaana dhaafi markaa imisaynu haysanaa 64 plus 32 waa 96 kanna off inooga dhig kanna kanna waxaad inooga dhigtaa off kaasoo keliya markaa inoo noqday inaga 64 96 kaasoo keliya inoo noqday markaa off marka imisaynu haysanaa waxaynu haysanaa 64 plus 32 plus 4 ka marka inta kale waa off saasoo boqolkiina ugu noqday kanna saa inoogu sax okay qaybta halkaasaynu kaga gudubnay waa fahantay maan umalaya si fiican bay la socotaan exampleskayga ku noqda dib ugu noqda videoga si fiican daawada waa simply haddaa fahmi weyda waan idinku celinaya marka labaad baan casharkan soo post gareynaya marka inaad fahanteen baan halkaas noo malaynayaa dhammaanteed inaad fahanteen baan u malaynayaa qaybtan aynu uga gudbaynaa qaybtaasoo ku xigtay inuu gudbaynaa qaybtanna waa lamid binary is a number system waa number waa hab number kaasoo aynu isticmaalno digitaan u isticmaalno 1 and 0 kanna waa sidii oo kale si fiican bay la fahanteen kan exercise baan idinka dhigaya markaa si fiican bay la fahanteen kan exercise ayaan idinka dhigaya maadaama casharka qaybta hore aan ku sharaxay waa iyadii oo ku soo celiyo waa example kale marka example-ka aan anigu halkan example ahaan idinka sharxi lahaa u qaata exercise oo si fiican u soo maxaan ku dhahdaa ay fahma qaybtaas aan idin hore idin sheegay iyo qaybtan waa isku mid markaas qaybtan iyo qaybtan isku dabaqa qaybtan baa soo hadhay ugu dambeysay numberkan waa isagii numberkan waa isla qaybtii qaybtan aynu doonaa 192 markay doonayaan inaynu helno waa maxay waa very simple 192 waa tan qaacidadeeni numberkeebaa u dhigma numberadan 192 ga 128 baa ugu dhow 128 keligii miyuu u dhigma maya 1 kaa soo qaado 128 1 kii bay soo qaadanay 1 buu inoo noqday 128 kii waa 1 buu inoo noqday because waa sax weeye waa on off maaha numberkii maxay naga dhiman weli wax bay naga dhiman halkan 64 baa yaala 64ku waaba kii naga dhinaa isku dar labadan waa 192gii labadan markaa 1 iyo 1 un baaba ona inta kale waa off intaa kale waa off 00 gina ku buuxsan labadii lambar waan helay isku dar 128 plus 64 waa 192 markaa labada lambar mid walba maxaanu soo qaadanay 128 ka waa 1 haddaan mar labaad ku celiyo 64 kana waa 1 marka waa on iyo on inta kale waa off 168 ka numberka ku xiga ayaynu doonaynaa inaan hadda soo saarno 168 numberkee baa u dhigma numberada 128 uu ka weyn 64 ka bilow 64 ka bilow 64 markaad ka bilowdo 64 baynu ka bilaabaynaa 64 markaad ka bilowdo
64 bay leeyahay numberka isaga ugu dhow okay 64 waan soo qaadanay on buu inoo noqdo waa 1 32 hina marka lagu daro imse noqonaysa okay 32 ku sii daro 32 196 96 okay numberka 96 marka wuxuu noqonayaa 96 plus maya sorry afwan halka 128 baan ka soo bilownay 128 okay on buu ku noqday sorry 128 on buu ku noqday because numberkan iyo numberkan wax yar kan 1 baynu soo qaadanay waa inoo on 64 kii off buu inoo noqday macquul ma noqonaysa labada marka isku daro 192 ku weynaanaya 32 gan ku dar kanaanu qaadanay 32 gan marka 32 gan 1 kiina halka inoo dhig waa sax on buu inoo noqday qaybta ku sii xigta 16 uu ka badanaya maya isagana off inoo dheh oo 0 ga inoo dhig 8 168 saas inoo noqday 128 plus 32 plus 8 waa 168 marka labadan kan waa inoo on waa 1 kana waa off kana waa on kana waa off kana waa on inta kalena waa off oo waa ka inoo dhigay 000 boqolkii baa soo haray boqolkii way isla garanaa bade boqolkii baa ugu dhow kan ugu ma dhawa 64 weeye iyo labadan la isu geeyay waa imisa marka kan waa on buu inoo noqonaya kana waa on marka 196 inta kale off dheh 4 kaas ku dartay waka waa 0 oo ku horeeya waa off si fiican buu isla fahmay boqolkii misaad ku helaysaa 128 uu ka badan yahay 64 iyo 32 waa 96 waxaad u geysaa afartaas boqolkii sidaas buu ku yahay buuruino iyo boqolkii marka halkaana waa isla fahmay maxaa soo haray qaybtana soo hadhay tan isaga waaba tan waa aragtaan tan muxuu noqonayaa tan ka ugu horeeya kan ma noqonayo 128 tan uu ku weyn 64 na uu ka weyn 32 na uu ka weyn 16 na uu ka weyn 8 kan soo qaadanay inta kale oo dhan waa 000 8 kaas soo qaadanay 8 kaas wuxuu inoo noqday 1 ka so waa on 4 kan uke markaas dabeedna 8 ka marka soo qaadatay waxa tiri dabeedna 8 ka waxaad ku dartay 8 kaas 1 buu ku noqday kan kalena wuxuu ku noqday off oo isaga 8 iyo marka la sugayo 4 waa 12 ka badiyay 2 kaasina soo qaadan 2 iyo 8 sugay waa 10 kana wuxuu noqonayaa 1 kana 1 inta kalena 0 iyo 0 bay noqdeen 0 iyo 0 halkaasina kala ku dhaafayna waxa soo haray 255 0 horta suurigaan ku horeyno 0 waa 0 ba numberkan wuxuu leegayay ma jiro 128 ilaa iyo way u ka sii hooseeya 0 ga sidiisa inoo dhig 0 ga inoo la steady number 0 waan ka dhigay steady number maadaama halkan ay number ka waaweyn yihiin waxa la leeyahay 0 steady la soo saaray 255 kana ku soo haray 255 kan waa numberka ugu badan ee aynu dhuma dhaafi karaba numberkaas 25 waa numberka ugu weyn ee IP address-yadu ay leeyihiin ama subnetku marka lama dhaafi kara iyaga maadaama sidaa tahay waxa weeye iska ilaaliya 255 waxa weeye isku darintan 128 ku dar waa 192 32 ku dar waa 140 ku sii dar dhammaan intaas oo dhan markaad soo wadageysa calaa kulli xaal ilaa 1 ilaa 128 waxay soo baxaysaa 2555 maadaama ay sidaa tahay 8 number aynu halkan ku haysanay qaacidayno ah 8 daba 1 ka dhig waayo numberkan lama dhaafi karo marka la isu geeyo intan waxay soo baxaysaa numberkan la 1 iyo 2 isu geey 1 2 geey waa 3 3 4 geey waa 7 7 8 geey waa 15 saa marka isu geeyso waxay soo baxaysaa 255 maadaama ay sidaa tahay wada 1 noo ka dhig maadaama numberkanu uu inoo noqonayo kan waa hal number inoo noqday waa good kan 128 halka waa inoo dhig 64 kana waa inoo dhig ila waa wada on wax off ma jiraan marka kan waa wada off ka xisho waa wada on kan kale waa wada on saasina 255 ku haysanaa kana waa saasina ku haysanaa qaybtaasna halkaas ay ku dhamaatay marka casharkeenan waa in si fiican loo fahmaa baynariga waan isku celinay hadaa fahmi weydaan xogaa la repeat faham buu baahan yahay ma adka in qofka aan channelkayga subscribe aan ku cusub oo aan hore maartay subscribe u saarin oo doonayeen la socdo please waxaan leeyahay like subscribe share and comment waxa la leeyahay wixii su'aalaha way soo weydiin kartaan comment xagga hoose ii soo dhiga mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay channelkan bil khair tv xagga maaweelada waxbarashada technology waliba gaar ahaan qaybta technology-ga waxyaabaha adduunka ka dhacay waan soo gudbinayaa inta awoodayda
idinkuna waqtigiina ha ku ciyaarna waa rabadaan ka faa'iidaystay iskuuladii fasax baa lagaga jiraa wixii online wax ku baranaya jaamacada ku baranaya koorskan way u faa'iido badan bay looday waayo weliba ardayda dugsiga sare aad iyo aad u anfacayayso kollejyada because waxa weeye fiilkan jaamacad baa loo tagaa 4 years baa lagu qarash garaya waxa weeye adduunyadu waa la jajabiyey marka aqoontii dabeedna waxa laga dhigay online system marka aniga ay iga dhamaataan ee aan waxaan idin baro qaabkaad imtixaanka u diyaarinaysaan very simple way intaasuna waa our notekeena message-ka aan dirayo hopefully you will understand my message it's going to help you insha Allah ta'ala رمضان مبارك ملك ستاجوك تامبر نمانتين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته